ቀዳማዊት እመቤት እናሳያቸው ድጋፍ ለሚፈልጉ ወገኖች ማዳጋርተዋል። ቁጥራቸው معهم ويل كان ير ويل ودلي أبي أحمد كمان دلان قويسك أبي أحمد ويل كان يركع 6 سنة جيركا noloshiisa ayaa ka soo bilaabatay god qashin iyadoo uu wareegtay meesha looga taliyo dalkaasi Itoobiya ee qasriga lagu magacaabo Jubilee House isagoo dhowr cisho dhalan ay hooyadii ku xortay god qashin oo ku yaala xaafadda Jarjal Afel oo caasimada dalkaasi Itoobiya ee Addis Ababa abriil 2018 markii la doortay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayuu idaacadaha ka maqlay in cunug laga helay god qashina xaafadda Jarjal Afel ee magaalada Addis Ababa Abiy Ahmed ayaa ka soo xigtay arinkaanin haweeney boolis ah oo ka tirsan ciidanka booliska dalkaasi Itoobiya kadib markii aragtay in god qashina oo baakad lagu qariyay cunug yar oo ka dhax ooyaya kadibna idaacadaha ay la wadaagtay sidaasi ayuuna Abiy Ahmed ku soo maqlay in cunugaani yarka lagu hooyadii ee dayacday ee ku tuurtay god qashin ama meel ra'iisul wasaare durba markuu maqlay dhacdadaani aadka u naxdinta badan ayuu ku amray in loo keeno cunugaas yarka si uu korsado waxa uu ku qaabilay dowladda ku qaabili lahaa markii cunugaasi uu dhashay aabihii haduu calfan lahaa maalinkaasi ayuu xaaskiisa Saneesh ka codsaday inay ku darto qoyska wiilkaani ee aan u xanaanayso maadaama Abiy Ahmed kaliya uu dhalay 3 gabdhood oo wax wiila uu sadalin sidoo kalena wiilkaani yarka ayaa noqday midka lagu indhakuusho aadna looga jecel yahay qasriga looga taliyo dalkaasi Itoobiya hadda waxa la sheegay in lagu magacdaray ama magaca la siiyay Abiy Ahmed diiwaankan loogu qoray dhalashada wadankaasi Itoobiya laguna magacdaray aabaha dhalay Abiy Ahmed ee lagu magacaabo Ali kaasi oo geeriyooday wiilkan ayaa sheekadiisa baraha bulshada adduunka ku baxday markii la dib loo xasuustay in Abiy Ahmed dhowr sano ka hor uu kafaalo qaaday cunugaasi asagoo gacanta ka haysta meel xaflad ama martiqaadana u soo watay asagoona dadka markuu salaamayay uu gacanta ka haystay wiilkaasi aadka u yar ee 3 sano jirka waa sheeko aad iyo aad ula yaab badan waana nasiibka iyo nasiib darrada oo hal meel ku kulmay nasiibka iyo nasiib darrada ayaa kala nasiib darrada ayaa in hooyadii dhashay ee god qashin ku tuurtay aabihii dhalana uusan war ka haynin halka nasiibkuna uu yahay in wiilkii qashinka lagu tuuray uu maanta uu yahay indhakuusha qasriga looga taliyo dalkaasi Itoobiya ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya ayaa taageerayaal badan ku kasbaday ficilkaani uu suubiyay walow dadku ay iska hilmaameen markii uu yiri cunugaani hal igu soo wareejiyo 3 sano ka hor laakiin ay la yaabeen markii arkeen cunugii uu weynaaday uu gacanta u ka haysto sidee u aragtaa sheekadan ma korsan lahayd cunug ajidka ka heshay sidees ayaa waxaan aan leen lahayd haduu weynaadana sidee ugu sheegi lahayd in maalmaha kamid ah jidka laga soo qaaday uu asaga u dhalin Maxamed Alfa salaamu alaykum